wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabnaa inaan falanqeyn yar ku sameeyno intii hadda oo shirka socday runtii khudbado badan ayaa halkan laga soo jeediyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kamid ahaa madaxdii halkan ka khudbeeyay ugu horreyn waxaan rabaa inay ila soo dhaweysaan Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha rugta ganacsiga agaasima soo dhawow shirkan ka waran maanta wuxuu ka dhigan yahay iyo khudbadaha halkan laga jeediyay aad iyo aad walaal ma hasan tahay ummadda Soomaaliyeed dhamaantoodna waa salaami shirkan waa shir taariikhi ah waaye Soomaaliya iyadoo waqti kooban oo 7 bilood gaarsiisnayn ay ka tirsan tahay East African Community ayaa shir weyne halkan la isaga yimid meel walba lagu qabtay oo East African quseeya sida darteed sharaf bay u tahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka maaragtay xiiseynaya inay ka faa'iideystaan integrationka ama isdhexgalka Soomaaliya ay ku sameynayso arrinkaas marka wuxuu ahaa runtii shir loo baahnaa waqtigiisina yimid waata waxayna la joogaa Cali Abtidoon Xalane agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha haddana la taliyay wasaaradda ka tirsan ah soo dhawow ka waran shirkan maanta iyo muhiimadda uu leeyahay shirkan waa shir productive ah oo waxyaalo badan oo faa'iido ay ka soo baxeen horta waa markii ugu horeysay oo la qabtay shirka Soomaaliya lagu qabtay waana guul u soo hoytay Soomaaliya maadaama ay muxuu ahaayay 7 bilood ka hor aan ku biirnay East African Community maanta waxay maraysaa in integration aan ku sameeyno يعني dhinaca ganacsiga iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca security-ga meel kasta inaan ku biirno waana fahmi kartaa regional blocs ka jira East Africa Africa ugu yaraan 7 ama 8 waa regional blocs waana muhiimad ay leedahay waxa kamid ah regional blocs ka muhiimad ay leedahay waxa kamid ah dhinaca security-ga dhinaca ganacsiga dhinaca muxuu ahaayeeto horumarinta dhinaca dhisida waxbarashada oo hay'ado kamid ah la dhisaayo haddana waxaa moodaa in ay horumar degdega inay ku talaabsatay muxuu ahayd East African Community markii Soomaaliya ay ku biirtay waayo waxaan leenahay 3,333 kilomitir oo waxaan leenahay xeebo oo dheer taasna waxa waaye dad badan oo muxuu East African Community ka faa'iideysan doono saaro socodka Tanzania Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa leh xeebo wax ku ool ah waxa soo raacay DRC oo muxuu ahayd oo xeeb yar aan badnayn leh oo dhinaca Atlantic-da ah laakiin inta kale waa landlock waaye afarta kale halka waa ka faa'iideysan doonaa anagana Soomaaliya hadaan wax badan ka faa'iideysan doonaa dhinaca waxbarashada dhinaca skillska waana ogtahay Soomaaliya inay tahay dad resilience ah oo aad u dulqaad badan dhinaca ganacsigana aad iyo aad ugu xeel dheer ay yihiin Soomaalida oo dad yani genius ah oo aad iyo aad ugu firfircoon oo yaqaano yani wax abuurka entrepreneurship-ka aad Soomaalida ugu fiican yihiin waxa ka arki kartaa Kenya ka arki kartaa Uganda ka arki kartaa Tanzania ka arki kartaa waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay yani wax badan isbedel ay ku samayso muxuu ahayd waa mahadsantahay dhinaca ganacsiga hadda waxa tahay agaasimaha rugta ganacsiga runtii maanta waxaa shirkan ka soo qayb galay ganacsato badan ama ururada ganacsiga iyo dhaqaalaha wadamada ku bahoobay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika marka bal ka waran hadda ganacsatadaas aad aragteen iyo ilaa hadda waxa ka wada hadasheen aad iyo aad walaal macaan kulanka xoogiisa dad badan ma oga wuxuu dhici doonaa caawa waxaanu dhaxmari doonaa 80 qof oo professional oo dhinacyo kala duwan ka socda oo looga wada hadli doono maxaa faa'iido ah maxaa la rabaa in la soo diyaariyo wixii la mid ah laakiin ayadoon bal waqti aan Soomaalidu waxay ka warqabtay East Africa si xoog leh u degan tahay ama wadan ahaanba Soomaalidu Kenya ay xoog u degan ka tirsan yihiin sida darteed Soomaaliya way ka warqabtaa waxa ay ka faa'iidi karto ganacsiga Soomaaliya markii horeba jooga meesha haddana waxay u badan tahay sharcigi lagu xujeyn lahaa baasaboorka East Africa qaada kartaa oo Soomaaliya xubin bay ka noqonaysaa wax dambe oo ajnabi la yiraahdo oo lagu weydiin karo ma jirto sida darteed qofka ganacsadaha iyo shakhsiga Soomaaliga ah ee hataa raba shaqo inuu doonto maanta hadduu tago Tanzania iyo Kenya hadduu tago shaqada ayuu ka qayb gali karaa waxaana waxay la mid yihiin European Union ko kale maanta oo tii laga dhawaajinay dadku waa inay fahmaan waxa lagu biiray waxa ay yihiin ma aha inaan inta tahriibta Kenya tahriib ku gasho hadda kadib Kenya muwaadin ka tirsanaa hadda kadib East African Community-ga baasaboorkeeda wadataa sida darteed shaqa ka doono kartaa wadankaas ayaguna shaqeynoo soo doono karaan ganacsiga naguna xoog boobo uga bilaaban doonaa hadda waayahay gudoomiyaha rugta ganacsiga halkan ka hadlay waxa uu sheegay in rugta ganacsiga Soomaaliya haddaba ay xubin ka tahay rugta ganacsiga bariga Afrika marka arintaas ma wada hadasheen oo maaragtay ma si rasmi ah ugu biirteen mase wali waa shaqa socota maya waa si rasmi ah bay rugta ganacsiga xubin waxay uga tahay Jambarka East African Community dad badan waxay u arkaan East African Communities waxa saxaafad qorayda suuq East African Community may East African bulshadeeda isku aamidooday waay
rugta ganacsiga iyo ganacsatada bulshadaasi ka mid yihiin sidaa darteed si dhow oo sahlan baa loo soo dhaweeyey rugta ganacsiga inay xubinimada East African Community hesho waxaana la weydiiyeen waxa ka mid ah International Chamber of Commerce aan xubin karnahay anaga International Islamic Chamber of Commerce aan xubin karnahay African Chamber of Commerce aan xubin karnahay marka East African waa wax nagu soo biiray laakiin adduunka xubnihiisa oo dhan aan buuxinay mar hore waayahay madaxweynaha jamhuuriyadda halkan ka hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliya fursado badan ay ka banaan yihiin runtii ayna dhiirigelinayaan maalgashadayaasha ka socda wadamada Afrika gaar ahaan halka hadda lagu biiray ururkan iskaashiga iyo dhaqaalaha ee bariga Afrika marka maxay arintaas ka dhigan tahay Cali Abtidoon arrintaas waxa waaye faa'iido weyn ayay noo tahay haddana already waa shuruucda muxuu ahayd investmentiga ama shirkadahan already waa la baasgareeyey waxaan rajaynaynaa shirkado cusub oo international inay yimaadiin ay maalgelin ku samaystaan ay weli joint venture la noqdaan ganacsatada Soomaaliyeed ama shirkadaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha ajnabiga inay noqdaan dad partner ah waxaana laga gaari doonaa guulo badan ayaa laga gaari doonaa Soomaaliya madaxweynaha khudbadiisu waa maqlaysay Soomaaliya inay soo qabanayso ay sida hormaahana si fiican ay tahay inay Soomaalida shalay iyo tan maanta inay Soomaaliya nabad tahay security-geeda fiican yahay meel badan ku biiray Soomaalida la aaminay waa garan kartaa marka cunaqabateynta laga qaado hubka waxaa cadaata Soomaaliya in lagu aamini karo hub nabadgelyana inay tahay security-geeda fiican yahay dalkaana muxuu ahayd inuu horumar ku taagsanayso waxaa kaloo garan kartaa Soomaaliya maanta inay muxuu ahayd nan permanent seat oo security council-ka in la siiyay waxaa kaloo faa'iido ah maadaama Soomaaliya muxuu ahayd laga qaaday deyn cafinta maadaama laga qaaday waxaa soo ifbaxday oo IMF iyo World Bank waxay qireen Soomaaliya shararka Afrika oo dambo oo World Bank ama dhaqaalaha inay Soomaaliya wakiil ka noqon doonto muxuu ahayd Afrika ay Soomaaliya kursi ay noqon doonto waa mahadsantahay Cabdiloore ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u dirayso mar ganacsatada Soomaaliyeed ee haddaba ku ganacsada wadamadan ku jira urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika walaal macaan ganacsatada Soomaaliyeed ee haddaba East Africa ka ganacsada ayagoo xasilan oo degan oo dokumentiga ay ku ganacsan lahaayeen asoo waliba Soomaaliya ay maanta heli karaan rugta ganacsiga Soomaaliyeedna si xoog leh ay arrimahaas uga shaqeyn doontaa ganacsiga Soomaaliya ee xagga yaal intaba faa'iido ugu jirta sadarteed qof kasto ganacsi ku fakaraya hadda kadib waxa ku fakaray 340 milyan oo qof inaad ka ganacsan kartid oo ayna ahayn Soomaali kaliya inaad ka ganacsanaysid waya ugu dambeyntii Cali Abtidoon xalana adigana shirkan hadda waa shirweynii ugu horeeyay oo nuuciisa oo la qabto tan iyo markii Soomaaliya ku biirtay urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika maxay tahay marka fariinta dadka Soomaaliyeed u dirayso oo maanta sidoo kale shirweynahan u diray Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u dirayaa Soomaaliya waxay tahay guul weyn dhaqdhaqaaqa Soomaaliya movement-ka ama dhaqdhaqaaqa baasaboorka Soomaaliyeed waxay ka mid noqotaan baasaboorka meel kasta wax visa la'aan ku tagi doonaan waxbarashada ama aqoonta iyo human capital-ka dhismi doono Kenya oo waxbarasho u tagi kartaa Tanzania oo tagi kartaa Rwanda Burundi DRC South Sudan wadamadaas oo dhan waxa ku tagi kartaa yani shahaadada Soomaaliya dugsiga sare ardayda Soomaaliya uga baxdo waxay meel kasta jaamacad ay ka dhigi karaan jaamacado ama private ah ama dawladahaas leeyihiin maadaama ay kamid yihiin يعني muwaadiniinta East Africa maadaama ay kamid yihiin waxa fursad ay u helayaan dhalinyarada Soomaaliya human capital Soomaaliya ayaa waxa uu abuurmaayo aqoon-yahan fara badan ayaan soo saari doonaa aqoon-yahan markuu soo baxana dalka horumar u gaari doonaa waxaan rajaynaynaa dad badan oo Soomaaliya oo wax barto dhalinyaro inay dalkeena ka soo baxaan ku biirida lagu biirtay faa'iido badan ay Soomaalida ka gaari doontaa dhinaca waxbarashada iyo dhinac kasto hadii aan leeyahay waa maasantahay wuxuu ahaa Cali Abtidoon xalane oo agaasimihii guud hore ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa sidoo kale ila falanqeynaya qaybtan Cabdi Abshir Dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtan aan ku falanqeynaynay shirweynaha maanta ka furmay magaalada Muqdisho waxa xusid mudan shirkan inuu socon doono muddo 2 maalmood ah runtii warbaahinta qaranka guud ahaan halkan ayay ka soo tabin doontaa shirka muddada uu socdo